hay-adda Hormuud Salaam Foundation ayaa deeq raashin iyo lacag cadaan ah waxay gaarsiisay isbitaalka Laazareti iyo ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed. Deeqda raashinka oo ka koobneed bur, bariis, sokor iyo saliid ayaa hay-adda Hormuud Salaam Foundation waxay gaarsiisay isbitaalka Laazareti ee magaalada Muqdisho oo ay ku jiraan dad badan oo ka xanuunsanaya dhimirka si ay ugu afuraan bisha barakeysan ee Ramadaan. Cabdiraxmaan Ibraahim Cilmi, gudoomiye ku-xigeenka hay-adda Hormuud Salaam Foundation, ayaa sharaxay deeqdan isagoona tilmaamay in ay joogteen doonaan kaalmada iyo garab istaaga dadka danta yar. maanta waxaan soo booqanay isbitaalka Foralini ee mentalka dhimirka. runtii isbitaalkan waxaan ugu soo dhaweystay Dr. Faadumo oo maartay mar walba runtii meeshan kamid dadka maartay hogaamiya. isbitaalkan runtii waxaa maartay ku xareysan ilaa 150 oo dad dhimirka la. marka Hormuud Salaam Foundation sida caadada ah maanta waxaan soo booqanay oo aan halkan keenay raashin kala duwan, bur, bariis, sokor iyo saliid oo aan rajaynayno inay ku kaalmeystaan quudinta la quudinayo dadkaas dhimirka la oo runtii u baahan bulshada dhan inay runtii maaragtay taakuleeyaan. waxaan u baaqayaa runtii bulshada Soomaaliyeed inay qayb ka qaataan sida isbitaalkani runtii oo ka shaqeeya dhimirka dad badan ay ku xariisan yihiin ay u taakulan sii lahaayeen. runtii Hormuud Foundation waxaan ballan qaadaynaa inaan joogteyno taakuleyntan aan maaragtay maanta keennay. waxaan rajaynayaa insha Allah inay qayb ka noqoto waxyaabaha ay isbitaalka ku kaalmeysanayo ayaan rajaynaynaa. dhanka kale waxaa deeqdan ka gudoomiyay hay-adda Hormuud Salaam Foundation Dr. Faadumo Cabdi Macow oo ku hadlaysay afka maamulka isbitaalka, waxayna sheegtay in baahi weyn ay u qabeen deeqdan ay soo gaarsiisay hay-adda Hormuud Salaam Foundation. Hormuud Salaam Foundation mar walba nama ilaawdo, sanad walba way noo keentaa, sanooyin badan waa noo keentay. ilaahay waxaan ka baryayaa in meeshay ka soo saareen wax kheyr qaba u soo saaro hay-adaha oo na xasuusta ayay ka mid tahay. dhinaca kale hay-adda Hormuud Salaam Foundation ayaa deeq lacageed waxa ay gaarsiisay ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed. deeqdan lacageed oo cadadeedu gaaraysay $6,000 Mareykanka ayaa waxaa markaasi ka faa'iideystay 120 qoys oo danyar ah. ugu horeyn waxaa deeqdan ka mahadceliyay gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Batuulo Axmed Gaballe iyo gudoomiye ku-xigeenka ururka, waxayna si isku mid ah ugu mahadceliyeen hay-adda Hormuud Salaam Foundation. waxaan halkaan rabnaa inaan mahad uga soo jeedino muxsiniinta Hormuud oo had iyo jeer taakuleeya dadka danyarta ah ee Soomaaliyeed bisha Ramadaan iyo markii loo baahdo oo kale. waxaan uga mahadcelinaynaa gurmadka ay noogu yimaadeen iyadoo runtii xaalado aad u adag lagu jiro oo dadku ay aad iyo aad dhinaca jeebku ugu xun yahay. haddana gaar ahaan haweenku waxay u badan yihiin saboolka, agoonta iyo garoobada. sidaa awgeed ducada laga dalbo ama sadaqada la siiyo ma soo noqonayso, ducadoodana ilaahay waa aqbalayaa insha Allahu tacaala. aan aad ugu mahadcelinaynaa Hormuud Foundation oo sanad walba soo garab istaagta gabdhaha danyarta ah ee masaakiinta ah ee aan waxba haysan iyo caruurtooda hal ama laba Allah ka dhige kaga farxisa maalinta Ciidda inay iidaan oo meel isla taagaan caruurta aabayaashood ay xoolaha haystaan. dad badan oo aan garan baa jira, dad badan oo Ilaahay xoolo siiyay oo aan cidna aan taakuladaas gaarsiinaa jira, laakiin ayaga waxaan leenahay Hormuud Ilaahay ha ka dhigo tii dalka iyo dadkaba Hormuud ka noqota, tii meel walba hogaamisa, tii ummadda Soomaaliyeed isugu timaado, tii ummadda Soomaaliyeed si fiican u gacan qabatay gacan ka sii wanaagsan, tii u sii geysata meesha ay deeqda kala soo baxeen ee ka soo bixiyeen lacagta $60,000 oo ay ku soo sadaqaysteen gabdhaha halka fadhiya ee danyarta ee maanta u baahan in la gacan qabto ay ayagu ku sadaqaysteen. ilaahay waxaan uga baryaynaa meeshay ka soo bixiyeen wax ka tiro badan inuu ilaahay ugu bedelo. Raaxo Xuseen Xirsi, gudoomiye ku-xigeenka hay-adda Hormuud Salaam Foundation, ayaa sheegtay in deeqdan ay ugu talagaleen inay kaalmo u noqoto haweenka Soomaaliyeed bisha barakeysan ee Ramadaan, iyadoo ugu baaqday ganacsatada in ay garab istaagaan ama garab istaag u muujiyaan dadka danta yar. waxaan maanta soo booqanay ururka haweenka qaranka waxaana soo gaarsiinay deeq lacageed kuwooda danyarta ah ee u taagan macnaha howlaha bulshada. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay u barakeeyo bisha Ramadaan. wax waaye mar walba waxay u baahan yihiin dadka danyarta ah
in la garab istaago la kaalmeeyo maadaama ay u baahan yihiin afur saxuur casho waxyaalo waqtiyo kala duwan wax loo baahan yahay mar walbana Hormuud Salaam Foundation waxa ay soo booqataa dadka danyarta ah markas bisha Ramadaan la gaaro waxay isdeeq kala duwan oo isugu jirta lacag iyo raashin gaarsiisaa dadka danyarta ah sida xabsiyada kuwa ku jira kuwa xanuunsan ee isbitaalada jiifa haweenka danyarta iyo garoobada ku jiraan intaasna waxay ugu tala gashay inay bulshadeeda wax ku celiso wixii Ilaahay soo galiyo faa'iido ah inay bulshadeeda qaar ku celiso waxaan ugu baaqayaa dhammaan ganacsatada iyo dadka Ilaahay wax siiyay inay masaakiinta xasuusnaadaan wixii sadaqadooda awooddoodana ay gaarsiiyaan Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho.